dhinac kale waxaa maanta magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka ee Galmudug ka dhacday doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya u matali doona Galmudug gaar ahaan aqalka hoose ayadoona la doortay xubno kamid ah xubnihii ugu dambeeyay sida ay ku soo waramayso wariyaha Deeqa Abuukar Jiino. doorashada xubnaha aqalka hoose maanta Cadaado lagu qabtay ayaa ahayd kuraastii 31, 32 iyo 33 oo ay ku tartamayeen ilaa 15 musharax kursi kamidana oo ahaa kursi ay ku tartamayeen haween. doorashada oo ka dhacday 2 meelood oo kala duwan ayaa waxaa ku soo baxay codeynta ergada kadib Cabdixakiin Macalin Axmed oo ahaa wasiirkii gaadiidka duulista hawada ee Galmudug, Cali Axmed Shariif iyo waliba Nadiifo Faarax Jaamac sida natiijada ku kala dhawaaqeen guddiga doorashooyinka dadban ee heer maamul goboleed ee Galmudug. kursigii 31 ee kamid ah 36 kursi ee laga soo dooran lahaa maamulka Galmudug ee kamid noqon lahaa golaha shacabka Soomaaliyeed. kursigan oo ergadiisa soo xaadireen 45 ergay ayna si toos ah ugu tartameen Cabdixakiin Macalin Axmed Maalin iyo Shukri Cabdi Faarax. natiijada 40 cod waxaa ku guuleysay Cabdixakiin Macalin Axmed, 5 codna waxaa ku guuleysatay Shukri Cabdi Faarax. ergadii tiradeedu waxay ahayd 50 waxaa 49 ku guuleystay musharax Cali Axmed Shariif Cusmaan. kursigii saddexaad ee maanta baxay u soo tartamay musharaxiintii soo xaadirtay ee u soo tartamay ee ahaayeen Nadiifo Faarax Jaamac iyo Xabiibo Maxamed Guule. halka Nadiifo Faarax ay cod ka heshay 44, Xabiibana ay ka heshay 0 cod. marka sidaas ayuu codkaana ku dhamaaday. sidoo kale waxaa dhankooda warbaahinta la hadlay xildhibaanadii maanta guuleystay. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inta aan sheego dhan xooga iyo dadaalka iyo ifoodka ay geliyeen arrimahan inay qabsoomaan. gaar ahaan waxaan ka mahadnaqayaa midaan hadda anigu aan u taaganahay intii ka qayb qaadatay ee kursigan waa kursi Soomaaliyeed. ergada codkooda isiisay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka Galmudug. waxaan loo doortay inaan ka shaqeyno oo wanaag ah. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta halkan doorashada ka dhacday iyo sida nasaahada leh ee wanaagsan ay u dhacday. waxaana ka rajaynaynaa insha Allah in oo annagana dadka iyo deegaankan nala ka doortay baahidooda inaan ka turjunno mustaqbalka insha Allah. heer gabagaba ayay maraysaa doorashada golaha shacabka ee Galmudug iyadoona wadarta guud ee xildhibaanada Cadaado lagu doortay yihiin 33 xildhibaan iyadoona ay harsan yihiin 3 xubnood. Deeqa Abuukar Jiino, SNTV, Cadaado.